kula wacan wanaagsan daawadayaal maalin kale cusub xaalad walwal ayaa laga muujinayaa siyaasadda dalka Soomaaliya kadib markii maalinnimadii shalayta ahayd uu shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed asagoona ku nuuxnuuxsaday in wax ka bedelka dastuurka xilligaani aysan u diyaarsaneen Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxa uuna daleeceen ku tuuray madaxweynaha talada haya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uuna sheegay in maalinkii ay ka soo horjeedeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ahayd hadafkooda in ummadda Soomaaliyeed ay u hagaan dhanka wanaagsan madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo dhowr meel ka tusaaleeyay wax ka bedelka dastuurka hadda ay ku howlan tahay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xilligaani aysan diyaar u noqon karin ummadda Soomaaliyeed walow ay maqan yihiin maamulo dhowr ah oo ugu horeyso maamulka Somaliland lana doonayo in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la isu keeno kadib 30 sano oo burbur Soomaaliya ay ku jirtay ayaa waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee ka hadla arrinta dastuurka uu ku howlan yahay madaxweynaha Soomaaliya hadda talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Shariif ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maalmaha soo aadan uu gaari doono magaalada Garowe uu kaga sii horeeyo madaxweynihii hore ee sagaalaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland arrintan ayaa imaanaysa xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in uu soo gabagabeeyo dastuurka wax ka bedelkiisa inta uusan dhamaanin bisha barakeysan ee Ramadaan walow baarlamaanka Soomaaliya badankood ay qaadaceen haddaba xaaladan cusub ee siyaasadeed ee ku soo kordhay gudaha Soomaaliya maxaa laga filan karaa daawade ra'yiga qaybta hoose ee commentiga noogu reeb waad mahadsantahay